mar walba ku dadaal sidii aad u farxad gelin lahayd waalidkaaga. حق ماله إن هذا القرآن حق ماله إلا الأمر إن لا ترى له دعاء أي حق لا يدعي. mar walba waalidkaaga daadiis weynaato wuxuu u baahan yahay daryeel gaar ah iyo inaad jacayl tusto, xitaa haddii aad adiga weynaato oo aad noqoto aabe xaas iyo carruur leh, amaba aad noqoto hooyo xaas iyo carruur leh. waxaa jira waxyaabo fudud oo aan kugu kalifayn wax badan, hase yeeshee haddii aad samayso farxad gelinaysa waalidkaaga. haddii aad kala fogtihiin waalidkaaga, la xiriir mar walba. inaad waalidkaaga taleefanka ka wacdo waqti ka waqti, amaba si joogta ah maalinkii dhowr jeer aad u wacdid, amaba xitaa aad booqatid, ayaa ah arrin aad u wanaagsan oo kor u qaadi karta mooraalkiisa. waxay dareemi doonaan waalidkaaga inuu jiro qof daryeelaya oo jecel, islamarkaana danaynaya inuu ogaado waxyaabaha ay u baahan yihiin, islamarkaana ka caawin kara. guriga ayaa ah meesha ugu badan ee waalidka ku qaataan badanaa waqtigooda, maadaama ay sii waayeeloobayaan, araggoodana uu sii daciifayo. ku dadaal sidii ay ugu raaxaysan lahaayeen hoygooda. iftiinka guriga oo dhan xooji, sidoo kale ka saar guriga waxyaabaha ay u baahnayn amaba keeni kara inay ku kufaan amaba culays u keeni kara dhaqdhaqaaqooda. waalidka alla ayaa nagala dardaarmay, oo alla subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa waxa uu ku yidhi: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. oo micnaha aayaddaasina ay tahay, dadka waxaan u dardaaranay labadiisa waalid inuu wanaag falo. hooyadiis uurkay ku siday iyadoo dhiban, waxayna dhashay iyadoo dhiban. uurkiisa iyo quudintiisa waa 30 bilood. markuu ilmaha tabar yeesho oo 40 gaaro, ayuu kan fiican dhahaa: eebow, igu toosi inaan kugu mahadiyo nimcada aad iigu nimcaysay aniga iyo waalidiintayda, iguna toosi inaan camal fiican ood ka raali tahay falo, iina wanaaji faracayga, waana kuu toobad keenaye waxaana ka mid ahay muslimiinta. marka uu waayeeloobo waalidka, waxa uu jecel yahay inuu ku dadaalo aakhiradiisa. waxaa laga yaabaa inuu ka fakarayo wax inuu sadaqaysto maalintii, amaba uu saacido dad qaraabo ah oo aadan ogeyn adiga baahiyahooda. marka waalidka u qoondee lacag, taasoo uu marka uu rabo ku caawiyo dadka kale, waayo howlahaasi caawinaada ku saabsan waxay dhisaysaa mooraalkooda niyadeed. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. marka loo eego marxaladda uu ku jiro waalidka ee gabowga ah, waxaa muhiim ah inaad dhakhtar geyso mar walba oo aad wax yar oo xanuuna ka dareento. tillaabadaasi ayaa waxay dareensiinaysaa inaad mudnaan siinayso waalidkaaga noloshooda. waxay dareemayaan markaad yarayd sidii ay kugu dadaali jireen, oo mar walba wax kugu dhacaan ay dhakhtarkuula ordi jireen oo kale inaad u samaynayso. sidoo kale ogow dabeecadahooda, cunnada ay jecel yihiin inay qaataan amaba ku habboon da'dooda. iskuna day inaad ka caawiso inay joogteeyaan cunnadaasi. oo ku mahadsantihiin la socodkiina. waa saaxiibkiin Saad Cali Saadiko oo idin leh ha idin wacnaato. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي
وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا